wacan oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastood caalamka ka joogtaan ha ku soo dhawaada mar kale barnaamijka waxqabadka dawladda oo isbuuc walba kala socotaan warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan annaga oo aan ku falanqayno waxqabadyadii iyo horumaradii ugu muhiimsanaa uguna waaweynaa ay ku tallaabsato dawladda qaybaheeda kala duwan barnaamijkan ayaa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cali juxa isla maxamed cali juxa ayaa soo diyaariyey waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dalkiyo dadka dugsi u tahay 24 bishan Maarso 2019 ayaa duqa Muqdisho muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigiisa oo si sharci darro ah looga haystay in muddo ahba duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow ayaa furayaasha gurigooda si sharci darro ah loogu haystay ku wareejiyay qoyska reer Axmed Xuseen Beyxaani oo gurigooda ku yaalay degmada Shibis gaar ahaan isgooska Beyxaani gudoomiyaha ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay ilaalinta hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed si looga hortago wax walba oo keeni kara cadaalad darro wuxuu ugu baaqay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda in meel looga soo wada jeesto wax walba oo cadaalada wax u dhimaya isla markaana aan loo dulqaadan doonin in muwaadiniin Soomaaliyeed si sharci darro ah guryahooda looga qabsado duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu taagan yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda waxaana tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay in cadaaladda uu ka shaqeeyo midana ay keentay in muwaadiniin badan guryahooda dib loogu soo celiyay kadib markii in muddo ah si sharci darro ah looga haystay midana ay daliil u tahay in maamulka uu diyaar u yahay ilaalinta hantida shacabka maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii u dambeeyay dib u habeen ku sameeyay waxaha dhulalka ee gobolka Banaadir si loo ilaaliyo isla markaana loo hubiyo sharciyada saxda ah ee guryaha loogana fogaado in si sharci darro ah looga qaato guryo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo jeedaan maanta sartii Beyxaani la yaqaanay in maanta dadkii iska lahaa ama xaq u lahaa in dokumentigoodii waxoodii iyo gurigiiba lagu wareejinayo tanna waxay ku timid runtii dadaal ay gudoomiyaha degmada Shibis iyo odayaasha dhaqankaba galeen oo ahaa in muwaadiniinta iyo guryahoodii si cadaalada si sinaana si qurux badan loogu wareejiyo waad arkayseen muxuu dadka wareejinay inay la dardaarmeen dadka kale waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay cadaalad waxa loo baahan yahay sinaan mana dhici karto qof kale gurigiisii muxuu ahaa si xoog ku joogi kara qof walbana waxaan ka codsanaynaa muddadii ay joogeen inay fahmaan in dadka milkiyadda guryaha u leh in guryahoodii xaq u leeyihiin annagana maamulka gobolka daana maamulka shacabka waxaan garab taaganahay qof kasta oo cadaalad iyo xaq iyo sinaan ku socdo garab weyn oo noqonaynaa waxaan rajaynaynaa qoyskii iska lahaa gurigaana inay runtii milkiyadoodii iyo gurigoodii siday doonaan ay u isticmaali doonaan maanta wixii ka dambaysana arrintii ahayd gurigoona laga haysana lagama hayso hawshu waa dhammaatay dadkii deganaan aan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa inay u dhaga nuglaadeen gudoomiyaha degmada iyo akhyaarta iyo nabadoonnadaba muxuu ahaa taladoodii Soomaaliyana Soomaali baa iskale wax kastoo naga dhexdeennana waxaan ku xallin karnaa si nabad ah dib u heshiisiina nabadeena marka arrintan waa tusaale cid kasta oo guri aysan lahayn joogtana waxaan ugu baaqaynaa intuu waqtigii goor tahay inay qof walbaba ay guri aysan lahayn aysan sii joogin marka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo guri milkiyadiisa sharciyadiisa haystana haddii noo yimaado waxaan u ballan qaadaynaa inaan sidaan oo kale si nabada ku dhammayn doono
haddii nabadeynta suuroobi weysana aan sharciga la tiigsan doono 25 bishan Maarso sanadkan 2019 ayaa maamulka gobolka Banaadir furay barnaamijka hibeeye ee bixi dhiigaaga maamulka gobolka Banaadir oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Marwa Basma Caamir Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Xuseen Maxamed Nuur ayaa si wada jira u daahfuray barnaamijka hibeeye ee bixi dhiigaaga barnaamijkan hibeeye ayaa in mudahaba ka soo shaqeynaysay waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir iyada oo markaasi la sheegay inuu muhiimad gaar ah u leeyahay bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolka Banaadir murayati magacaso maalidiyo Soomaalidiyo madasha kulan siisayo qaranka laga maamule Muqdisho waa murayati magacaso maalidiyo Soomaalidiyo madasha kulan siisayo qaranka laga maamule furitaan muhiim ah una ah bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir sidaan ognahay maalin walba dhibaato dhacdo sida xildhibaan Canab ee sheegtay dhiigga inoosan naga bixin horta aan ku dadaalna ammaanka laakiin dhibaato mar walba way dhacaysaa haddaan nahay hooyooyinka ku nool caasimadda gobolka Banaadir annaga u badan dadka u baahdo dhiigga maalin dhaweyd waxaa jirta isbitaal Yaardamiil anoo joogo gabar dhiig bixaysa ayaa la kulmay oo foolanayso agaasimaha caafimaadka dawladda hoose xamar soo wacay aan dhahay gabadhaas dhiigeeda noocaas waaye agaasimi sideen wax yeelnaa dhalinyaro badan oo dhalinyaradan kamid ah lagu soo xiray alxamdulillaah rabbil caalamiin waa la badbaadiyay ilaahay wax badbaadiyo marka waxaan rabaa dhalinyarada inaan la hadlo oo dhahayo HB-geyga waa yar yahay iyo dhiiga ma bixineyno qofka dhiiga hibeeyo ama sadaqeeyo waxa ugu ajirka badan oo la bixiyo dhiiga ah dhiiga markii la sadaqeeyo caafimaadkaaga xataa wuu kordhaa dhiiga markii la bixiyo wax badan oo jirkaaga ka dhinaa xataa ayaad ku helaysaa marka waxaan rabaa dhalinyarada inay noqdaan wax walba annaga markaan hadlayno ama madaxda qaranka markay hadlayaan waxay dhahayaan 75% dalkan waxa u haray waa dhalinyaro ayaa loo baahan yahay marka dhalinyarada waxaan rabnaa dhinac walbaba inay noqdaan kaalinta koowaad ee ayaga noqdaan hogaamiyaasha dadka badbaadiyaasha intaba inay noqotiin dhiigana inaad sadaqaysataan in la isgargaaro la isgurmado gurmadkana arrimihiisa waa la socotaan oo maamulka gobolku aad iyo aad buu uga shaqeeyay ha noqoto ambalaasyo ha noqoto debdemis ha noqoto xarumo cusub oo la sameeyay ha noqoto tababar iyo dhalinyaro badan oo shaqo abuur loogu sameeyay arrimahaas haddana weli faanoo la farkama qodna inta dhimanna waa sii dhammaystiraynaa mar kale waxaan u mahad celinayaa waaxda arrimaha bulshada oo barnaamijkan muhiimka soo qaban qaabisay agaasimaha waaxda caafimaadka dhammaantiinba iyo dhalinyarada halkan u joogto maanta inay dhiirigeliyaan isla markaana ku bogaadiyaan Soomaalida intooda kale inay kaalintooda ka qaataan sidaan ognahay ma leenahay bangiga dhiigga insha Allah wasaaradda caafimaadka ayaan ka sugaynaa inay bangiga dhiigga awoodda ay isku geyso hadda shaqadeeda ay qabanayso hadda qorshaha hadda ee wada ee tahay in bangiga dhiigga la helo keedka markaas dhiigga aan yeelanayno ee noqonayso bangiga dhiigga laakiin inta ka sokayso in annaga is caawino annaga wax isku qabano annaga is badbaadino qofkeena dhiban aan ku fiirsanin marka waxaan rajaynayaa insha Allah dhalinyarada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaad hormuud ka noqotaan meel kasto dhibaatada ka dhaco ama message-ka ku soo dhaco inaad ka jawaabtiin inaad isdiiwaan gelisiin dhiigoona degma isku diiwaan gelisaan aad degmadii iyo wax isku sameysaan dhiigiina sida loo ogaado
oo qofka walaalkaaga ku caawini karta ama ku badbaadin karta aadaan u soo dhaweynaa xafladaaneeti insha Allah wax badan ayay ka faa'iidayaan dadka ku nool caasimadda gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka sare ee gobolka Banaadir ee suurta galiyay shaqadan quruxda badan inay maanta dadka halkan ku dhaqan oo intaas oo sano ku noolaay oo duruufta ka jirto iyo adeeg ay u baahan yihiin fogaanteeda ee xarunta degmada mararka qaar soo gaari karin ma xarunta gobolka adeegyada qaar looga baahnaa in ay maanta ka saacideeyeen shacabkii in meel loogu adeegi karo oo qurux badan oo dawladii ay fariisan karto shacabkeedana ugu imaan karo in laga hirgelinayo waa ujeedaan maanta dhagax dhigan waaxdii barwaaqo ee degmada warta nabadda oo aan dib loo dhisayo si casri ahna loo hagaajinayo xaruntan waa xaruntii bulshada loogu adeegayo annaga waxaa naga go'an goobaha danta guud ee bulshada loogu adeegayo inay noqdaan goobo bulshada u adeega goobo runtii bulshadu ka heli karto adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan muddo ayaan soo wadnay daadejinta maamulka iyo adeegyada haddana u jeedaan awal waxaan dhisaynay degmooyinka xarumahoodii hadda waxaan u gudubnay waaxyihii wada arkaysaan waaxdii Oktoobar ee degmada Waaberina soo dhagax dhignay maantana halkan joogno marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay si maamulka gobolkooda kugu adeego waxa loo baahan yahay 26 bishan Maarso sanadkan 2019 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir dhagax dhigay wada ku taala degmada Waaberi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa dhagax dhigay wada halbowle oo ah isu socodka gaadiidka muhiimna oo ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka ku nool degmada Waaberi wadadan dib u dhiska lagu sameynayo ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa bilicda iyo amniga caasimadda wadadan ayaa waxay isku xiraysaa waaxyo badan oo muhiima waxay sahlaysaa in dadka si degdeg ah ay ku gaaraan meelaha ay u socdaan zaxmada wadooyinka kale oo yaraata bilicda wadada oo dib u soo laabata ganacsiga oo kordha wadadan oo ku taala degmada Waaberi ee nasiibka u yeelatay in la dhagax dhigo ayaa laga soo bilaabay kadib markii hareeraheeda laga sameystay dhismooyin sharci daro ah oo markaasina la burburiyay dabadeedna hadda suura gashay in la dhagax dhigo dhismaheedana uu bilowdo degmada Waaberi waaxda hanti wadaag horseed iyo maajo oo ka soo bilaabanaya 15 Oktoobar dhirarkooduna uu dhan yahay 1 kiiloomitir iyo bar taasoo kol hore mudana gudoomiye aan ku xarag jarnay inaan furno wadooyinka aan furno aan tijaabo noo ahayd wadadii aan furnaa maanta dhismaheedu diyaar yahay muhiimadda laga lahaa waxay ahayd in isku socodka bulshada adeegyada iyo amnigaba ay ka qayb qaadato iyo bilic soo celinta caasimadda gaar ahaan degmada Waaberi maanta dhismaheedii oo ah tijaabo kale oo ah in wadooyinka in la furo haddana la dhiso ee wadooyin muuqaal qurxoon leh la mari karo bulshadii ay ka faa'iideysan karto adeegyadii isu socon karaan inay noqoto inaan tijaabo kale u galno waa ilaahay mahadis maanta diyaara loo yahay in la dhiso oo laga dhigo wada jay adag ah oo sii jiri karta ayadoo wadata adeegyadii loogu talagalay mudana gudoomiye ku soo dhawow waa munaasabad ay noo tahay waxaan ka mahad celinaynaa ka qayb qaadashadiinii iyo dadaalkiinii aad ugu garab istaagteen
maalintii furitaanka ay joogtay iyo maanta aan dhismaha waddadii taagannahaba garabkii iyo gacantii aan nagu siiseenna waan kaga mahad celinaynaa waana rajaynaynaa waddooyin kale ee badan inaan furi doono dabadeedna laga faa'iidaysan doono haddii ilaa yidhaa bulshada ay ka faa'iidaysan doonto in waddooyinkii ciriiriga ahaa ee degmada Waaberi ay ka baxaan ay helaan waddo baabuurta mari karto waddadan oo aan rajaynayno isku xirayso waaxyo badan oo muhiim ah horeyna aan u nimido halkan dadkii jidadka qaar ka dhistayna muxuu aan guryihii ka duduminay ujeeddadana ahayd in jidad nafis ah oo ay helaan degmada Waaberi waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimka ah ee caasimadda si caasimadda loo horumariyo bilicdeeda loo soo celiyana waxaan garanay in aan ahmiyad gaara siino degmada Waaberi waxaan kaloo rabnaa bulshadeena u sheegno in arrimaha danta guud waddooyin ka mid yihiin iyo goobihii lagu adeegaya bulshadaba inay muhiim tahay annagana u soo jeesanay dibadhiskooda iyo horumarkooda tan oo qayb ka ah caasimaddan si ay ula tartanta caasimadaha adduunka waa in la helo caasimad la jaan qaadi karta caasimadaha adduunka arrintan waxay ku timid dadaal degmada Waaberi iyo shacabkeeda runtii ay u garteen ahmiyadna siiyeen markii lala tashtay waddadan inay ahmiyad gaara u leedahay una baahan yihiin waddooyinkana in loo furfuro waxaan kaloo codsanaynaa dadka waddooyinka dhistay ayagana inaan digniin adag u dirno tii u dambeysay oo ah cid waddo soo geli karta male gurigaaga hadduu dabaq yahay 1 mitir haddaad soo gasho waxa waa wixii ka yimaada adaa mas-uulka marka hore goob wadda ah oo dan guuda ha hawaysanin ha dhisanin hana maaragtay muxuu ka qayb qaadanin in muxuu falalka noocaas oo kale ah isla 26 bishan Maarso sanadkan 2019 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir daahfuray shir markaasi looga hadlayay hirgelinta iskuulada farsamada maamulka gobolka Banaadir oo uu markaasi horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa daahfuray shir looga hadlayay hirgelinta iskuulada farsamada gacanta si loo horumariyo xirfadleyda isla markaana shaqo abuur u helaan bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada dhalinyarada iskuuladan farsamo ayaa la sheegay inuu yahay mid leh muhiimad gaar ah una leh bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada dhalinyarada ah barnaamijyadan lagu dhisayo awoodaha dhalinyarada ayaa maamulka gobolka Banaadir kala kaashaday hay'adda GIZ ee laga leeyahay dalka Germany kulankan oo runtii ahmiyad gaar u leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada GIZ oo Jarmalkana aan si gaar uga mahad celino doorka muhiimka ah ee Soomaaliya siiyeen si looga saaciidi lahaa in dhalinyaradooda la baro farsamada gacanta oo waliba qorshahan ballaaran oo ay wadaana uu yahay mid tababarka macallimiinta isugu jira iyo curriculumkii manhajkii TVET-ka isagana loo dhigi lahaa dhalinyaradeena isla markaana ay ku heli doonaan aqoon iyo waayo-aragnimo shahaado taas u sahlaysa inay shaqo helaan marka barnaamijkan waa barnaamij shaqo abuura waa barnaamij dhalinyaradeena hagaya inay bartaan xirfadaha adduunka looga baahan yahay waliba si caalami ah sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradaha dowladda federaalka oo arrintan ayagana juhdi badan geliyey sidii dhalinyaradeena shaqo abuur loogu sameyn lahaa wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan hay-adaha dowladda waxaan kaloo rabaa inaan si gaar uga mahad celiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ayagana isku taxallujiyey in ay fursad siiyaan dhalinyaradooda oo xarumo farsamo gacanta ka hirgeliyey dalka oo dhan siiba magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kaleba oo xeele bariisa ka mid tahay hana academy ka mid yihiin maamulka gobolka Banaadir ayaa ahmiyad gaar ah u leh arrimaha iskuulada farsamada gacanta xoogana uu saarayo sidii loo horumarin lahaa loona dhisi lahaa awoodaha dhalinyarada ayna u baran lahaayeen farsamooyin ay ku heli karaan shaqo abuurna u noqoto iyadoona dhalinyarada ku nool Muqdisho ay soo mareen duruufo aad u adka
oo markaasina u soo dhabar adeegeen duruuf kasta oo markaasi jirtay. tanina waxay qayb ka tahay sida uu maamulka u xaqiijinayo in dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir u gaaraan isku filnaansho dhan walba leh. annaga maamulka gobolka Banaadir hadaan nahay waxaan ahmiyad gaar ah siinaynaa sidii dhalinyarada oo 75% shaqo abuur ay u heli lahaayeen. sidii shaqo abuurka ay ku heli karaanna waa inay bartaan xirfadihii ay shaqo ku heli lahaayeen ayagoo cidna u baahan. marka runtii tan waa ahmiyad gaar ah dhanka dowladda federaalkana ay siinayso annaga maamul gobolka Banaadirna aan siinayno gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aad ka warqabtaan in maaragtay dhalinyaradeedii muddadii 30 sano ahayd duruuf aad u adag ay ku soo koreen taasoo dhaxashay inaysan helin waxbarashadii tayada lahayd oo loo baahnaa. marka si taas bedelkeedii looga kabto waxay u baahan tahay dhalinyaradeena waliba gabdhaha in shaqo abuurka iyo farsamada gacanta ayaga si gaar ah marka waxaan si gaar ah uga codsanayaa shirkadaha iyo hay'adaha dhaqan gelinaya barnaamijyadan inay tixgelin gaar ah siiyaan gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii muhiim u ah horumarka bulshada. waan ognahay xaaladahooda ay ku jiri jireen maantana aan aragno waxbarashada inay ayaga ugu horeeyaan marka taasna dhiirigelin gaar ah inaan siino ayaa loo baahan yahay. farsamo gacan anaga kama sheekeynayno waxaan halkan u nimid waxay tahay bal inaan talooyinkiini wixina dhageysano fikrada la isdhaafsado gaar ahaan Xayla Bariisi iyo Hana Academy fursadaha ay dhalinyarada siiyeen sida caqabadahoodii waxyaalaha lala qaban karo sidii loogu fududeyn lahaa inaan ka wada shaqeyno ahmiyad gaar ah ayay anaga noo leedahay. wasaaradda halkan joogana runtii waa ugu mahadcelinayaa doorkan mar kale dowladda Jarmalka iyo shirkadda GIZ ayagana waxaan leenahay wadanka ku soo noqotay kaga mahadcelinaynaa laakiin haddana waxaa la rabaa sidii barisamaadkii sida aad maaragtay xarumo lagu yaqaanay ay u jireen oo loo hirgelin jiray ayagana in ay dadaalkooda kordhiyaan oo aysan wixii ka dhigin mashruuc oo ay ka dhigaan wax ummadda u baahan tahay oo ummadda loo hirgeliyo. midda kale waxaan ognahay in waxaan mashruuc kaliya aan laga dhigino dadka wax barteen waxaan rabnaa inay dadka kale si voluntary wax ku baraan. annaga hadda mashaariic waxaan ka hirgelinay 3 degmo waxbarashada dadka waaweyn oo dhalinyaro volunteer ku shaqeeya ay dumarkii wax baraan habeenkii iyo galabtiiba. marka arrimahaas oo dhan waxaan ku gaari karnaa 30 sano naga dhumay anagoo qof walba wax yaqaanana uu wax baro qofkan wax aqoonina uu wax barto si waliba isxilqaan ah markii lagu darana aan isleeyahay inay hagaagayso. 28 bishan Maarso sanadkan 2019 ayaa duqa Muqdisho dhagax dhigay xaruntii hore ee xanaanada caruurta ee degmada Warta Nabadda. oo aan shaqaynin muddadii uu dalka burbursanaa ayaa waxaa si wada jir ah u dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax iyo gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Zaynab Maxamuud Warsame Xaabsay. xaruntan ayaa waxay noqonaysaa xarun markaasi lagu xanaaneeyo laguna daryeelo laguna barbaariyo caruurta yaryar ee soo waajaha dayaca ama caruurta waalid la'aanta oo waalidiintooda dhinteen ama la waayay ama caruurta xaaladooda nololeed daruufaysan. haddaba xaruntan waagii hore maxay ahaan jirtay? iyadoo halkaan ay horey u ahaan jirtay xanaano caruur loogu talagalay oo gobolka Banaadir guud ahaan ay imaan jireen caruurtooda lagu xanaaneyn jiray loogana faa'iideyn jiray bulshada ku dhaqan oo caruurta oo danyarta ah noqoto ama ha noqoto caruurta maxaa la yiraahdaa waalidkooda u saamaxaynin in ay haystaan oo la rabo in lagu xanaaneeyo sababooyin jiro awgood. annagana ka maamul degmada Warta Nabadda ahaan iyo gobolka Banaadir aan ka soo shaqeynay muddo sanad iyo wax la jira ah
lillahi alxamdu maantay waxaad aragtaan dhagax dhigeedii iyo guusheedii inaan soo gaarnay halkan waxaa lagu xanaaneyn doonaa hadduu ilaahay idmo systemkii hore system xoogaa ka dugan oo ay caruurta magaaladan ku dacdareysan ha noqdaan kuwa lasoo tuuro waalid la'aanta wadooyinka laga helo ha noqdaan ilmaha kale ee danyarta ha noqdaan ilmaha agoonta dhammaan dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir oo iska kaashanayaan waxay noqon doontaa meeshii lagu xanaaneyn lahaa haddii uu ilaahay idmo sida ay in muddo ahba bulshada loogala tashtay xaruntan iyo sidii noqon lahayd wadatashiga bulshadana uu ku yimid in ay bulshadii rabto in xanaanada caruurta sidii ahaan jirtay halkan lagu soo celiyo oo bulshada uga faa'iideysato xaruntan aad u jeedaan waa goob dan guud ah waxaan rabaa inaan halkan ka xuso in gudoomiyaha warta nabadda ay is hortaagtay dad badan oo doonaya goobtan inay si shakhsi ah u isticmaalaan anagana maamulka gobolka daanahay dan guud waxa loo isticmaali karaa waa dan guud halkan waxay ahaan jirtay xanaanada caruurta in xanaanada caruurta ku soo noqoto oo waliba sidaad ka maqlayseen gudoomiyaha degmada warta oo caruurta waliba aan maaragtay awoodda lahayn oo in halkan lagu xanaaneeyo ha noqoto kuwa darbijiifka ah ha noqoto kuwa aan waalidkood awoodin annaga ka maamul ahaan maamulka shacabkana waxaan ogaan shacabkaas in loo adeego in xaruntan dib loo soo nooleeyo ayaa waxay ku timi kadib markii dadka ku dhaqan degmada warta nabadda ay ku taliyeen kuna booriyeen maamulka degmada warta nabadda in xaruntan dib loo dhiso looguna adeego bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir taasi waxaa ku dhan barnaamijka waxqabadka dawladda oo aad kala socoteen warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan waxaana idin la socodsiinayay Maxamed Cali Juxa isla Juxa ayaa soo diyaariyay waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska nabadiina iyo nooli kulanti wassalaamu calaykum